waxaan leeyahay maxamuud xaashow innagu waynu isgaranaynaaye inaan isku muuqmuuqan tallaabadaad qaadana haddii shalay tallaabooyin badan kuu saxmeen maanta tallaabooyin badan kuu saxmi maayaan marka waxaan leeyahay si dhaqsaa faraha looga qaado inamadaa ha loo soo daayo maxamuudow tii hore tan ha noogu darin annaguna gudubteedu xaggay taallo maxamuudow naga duwi maysid oo waanu garanaynaa aad baan inagu mahadnaqayaa in badan warbaahinta waan ka maqnaa waxaa isoo kiciyey waxaa ka mid ah waxooyin aad iyo aad aan ugu dul qaadan waayey oo inagu soo noqnoqonayey wanjal lagu samaynayo niman dhallinyara oo saraakiila nimankaasi hawshoodaasi cid baa ka wada shaqaysay waxaa ka wada shaqeeyey ninka la idhaha maxamuud xaashi iyo ninka meesha haysta ujeedkii ka leeyidiina ay tahay si reerka la idhaha subeer awal uu toos ciro iyo iyagu iskugu muuqdaan oo iskugu dhacaan isaguna ka faa'iidaysi siyaasadeed ayaa isagii maxamuud xaashi ka dayayaan marka waxaan maanta arrintaasi aan leeyahay maxamuudow inagu wax badan baynu isla garanaynaa wax badan baynu isla fahmaynaa waa in adeer tii hore ha noogu darin tan in adeer maxamuudow tii hore tan ha noogu darin annaguna gudubteedu xaggay taallo maxamuudow naga duwi maysid oo waanu garanaynaa xukuumadda dalka haysatana waxaan leeyahay arrimaha sidaa u dhacaya haddaad inuu indhaha ka qabsataan iniga ayuunbaa iniguna kursigiinii iyo hawsha isku soo gaabinaya xukuumadda waxaan leeyahay madaxweynaha waxaan leeyahay cabdiraxmaan waxaan leeyahay cabdiraxmaan arrimahan inamadaa xidhan si dhaqsaa hawshooda faraha looga qaado ninka meesha haystana waxaan leeyahay adiga iyo aniga lafa rag baa ina kala jiifa reerkaad aduu tahay in adeerkay ayaa igaga maqan korneelka igaga kaa maqan goryo cawl cabdirasaaq dalmar waa la wada garanayaa iyadoo cabdirasaaq kugu maqan yihiin haddaad saraakiil kalena oo 16 aad u qorshayso arrimo khatara wallahi inaan lagu kala aamusayn oo hargeysa lagu wada joogay arrintaan waxaan leeyahay xukuumaddu si dhaqsaa u soo farageliso annaguna gudubteeda ciro uma haysanno dawladdaa xukuumaddaana uma haysanno ciddaan u haysanno waanu garanaynaa marka waxaan leeyahay maxamuud xaashow innagu waynu isgaranaynaaye inaan isku muuqmuuqan tallaabadaad qaadana haddii shalay tallaabooyin badan kuu saxmeen maanta tallaabooyin badan kuu saxmi maayaan adiga iyo guddidaada ceel af weyn ee shalayna meheradda markay ka hadlayeen sidii dembiilayna yihiin hadlayay giltiina yihiin way ka muuqatay dembiilayaalina yihiin marka waxaan leeyahay si dhaqsaa faraha looga qaado inamadaa ha loo soo daayo intaasaan hadal kaga tegayaa wixii dambana dadkayga iyo shacbigana waxaan leeyahay waynu ka wada soconaynaa dhegihiina iyo indhihiinuba istanboy ha ahaadaan waxaan hadal kaga sii tegayaa
qoladii shalay beerka ka hadlisay ee lahayd in yar noo qosla inaad ruuxaynu wada qosli doonaa markaad inaguna beerka dhulka ku dhufataan ayin baynu inaad wada qoslinaaye maanta wada qoslimayno wassalaamu calaykum